السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين ميلو بقى جوجتين waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada YouTube channel-kayga. waxaan rabaa inaan laba qodob halkan kusoo qaato. mid waa mid waxaan rabaa in aan abayooyinkii shalayto markii aan iri isbitaalkan joogaa abaayo Soomaaliyeed ayaa dhalaysa gabdhihii u soo duceeyay walaashayda Soomaaliyeed in aan ayagana aan Allah subhanahu wa ta'ala u baryo oo aan iraado saad noogu duceyseen ba hela wax idin duceeya qoys wanaagsan oo qurux badanna Allah ha idin siiyo idin ku arsaaqo hana idin xifdiyo. midda kale oo aan rabo inaan halkan kusoo qaato ayaa waxay tahay maadaama aad soo weydiiseen aad xaaladeena la socoteen aad tiraahdeen abaayo ma umushay waxaan abaayaday markaas aan ka codsaday iyadana aan u sheegay waliba inaan u soo duceyseen kana codsaday in aan qaabkii iyo siday u foolatay oo aan jeclaystay oo aan aad uga helay inaan idin la wadaago. mar walba way ogtihiin waxaan idin dhahaa markaad foolanaysaan isdabiya ha is adkaynina neefsashada ku dadaala idinka oo sanka ka jiidaya afka ka soo daynaya idinkoo dhahaya ku dhamaysta fooshiina dhib kasta ha idinku ahaato qof idin xasuusiyana diyaarsada. marka waxaan rabaa inaan qisadeeda halkan ku bilaabo. abaayo isbitaalka ayaan tagnay 5 galabnimo markay ahayd maalintii sabtida ahayd ayaa waxaa la yiri soo xarood waqtigaagii waad dhaaftay 2 toddobaad ayaad ku darsatay waxaa la gaaray xilligii laga foolin lahaa. ka hor intaas abaayo waan kulanay intaysan foosha qabanin ayaama ka hor ayaan ka wada hadalnay say rabto inay u foolato. waxay ii sheegtay in ay hoos isugu go'day ilmihii ugu dambeeyay oo ay halkan ku dhashay markaana ay doonayso in laga ilaaliyo in ay hoos isu goosato idanka ilaahayna in maaragtay ilaahay uu maaragtay u dhib yareeyo oo uu ka ilaaliyo dhaawac iyo dhibaato. go'aankeenu sidaas ayuu ahaa. waxaan tagnay isbitaalkii sabtidii 5 galabnimo. markii umulisada ee noo timaaday ee la eegay intay furan tahay 2 sentimitir ayay furnayd. 2 sentimitir muddo ayuu furnaa. marka abaayo foorjajabo ayaa wuxuu ku bilowday bishii 7aad laakiin baaritaanadii ugu dambeysay intaana loo ballamin in laga umulin doono in ay 2daas ay furnayd. waxaa dhacday marka in ay la yiri marka siyaabo kala duwan ayaa la iskaga fooliyaa. gabadha inay ugub tahay iyo inay ilmo hore soo dhashayna way ku xiran tahay. sanado badan ka hor inay dhashay iyo intay hadda furan tahayna way ku xiran tahay. macnihii marka la foolinayo qaabo badan ayaa la fiiriyaa siyaabo kala duwanna waa loo fooliyaa. siyaabahaas marka la iskaga fooliyo waxaa caadi ah inta badan oo aan naqaano waxa weeye fool kululeyso oo la isku duro iyo in ilmaha biyihii ay ku jireen xuubka la dilaaciyo. labadaas waa labada ugu caadisan. go'aan lama gaarin maadaama 2 ay furan tahay cunugana weli madaxa kafkii uusan si fiican u soo gelinin. umulisadu waxay go'aan ku gaartay in ay dhakhtarkeeda la soo tashato inay hadda ay maaragtay ay ka dilaacinayso biyaha iyo in loo kaadin doono iyo tallaabada ku xigtoo la qaadi doonaba. waxaa dhacday markaan guriga ka baxayay ayaan abaayo waxaan ku iri mushaariyaa noo soo qaadayaa. mushaari baan dirmiis ku shubtay. waa markii ugu horreysay oo aan mushaari ama boorash aan intaan ku shubo dirmuus aan isbitaalka u qaato. waa markii ugu horreysay oo aan yacni isbitaalka uba qaataba boorash. waxaana igu dhaliyay abaayo Soomaaliyeed oo markaas 10 beri ka hor dhashay in boorash loo keenay oo aan ka helay. go'aan waxaan ku gaaray inaan gabar kastoo Soomaaliya hadday dhalayso haddaan guriga joogo oo aan ka gaaro inaan sii qaato. macnaa aniga keligay ma ahan abaayo kastoo foolanaysa inaan siiyo ayaa ugu talagalay. maxaan war idinkugu daarinayaa boorashkaygii baan sii qaatay. intay umulisada dhakhtarka la soo tashanaysay ayaan abaayo waxaan siiyey bakeeri boorasha. bakeerigi markay cabtay
waxay tiri haddana waxaan iri mid kale aan kugu dara mid kale aan ugu daray ilaahay amarkiis waxaan arkay marka sariirtii ay ku fadhiday iyadoo lugihii saa iskugu dhaafsan yihiin waxaan jeclaystay marka inay lugaha dabciso oo kala furto oo ay maaragtay space cunuga u samayso waxaa dhacday marka ilaahay amarkiis in biyihii dilaaceen biyihii dhakhtarka lagala tashanayay in laga dilaaciyo in kale maadaama cunuga kafki xoog usoo gelin haddii la dilaaciyana halis ay ku noqon karto oo ay maxaa la dhahayo xuduntii ay kusoo hormari karto kafka hadhowna cunuga uu oxygen la-aan ku dhacayso uu meesha ku dhiman karo waxyaabo badan ayaa la fiiriyaa xataa marka laga dilaacinayo biyaha waxaa la fiiriyaa cunuga madaxiisii kafkii ma soo galay oo xuduntii ma kasoo hordhici kartaa mise cunuga madaxiisii kasoo hormari kara waxyaabo badanaa la fiiriyaa waxaa dhacday marka intay ku maqnaydba inay biyihii naga dilaaceen cajiib waxaan is iri hadday saas tahayba maalin kasta gabar kasta waa inaan kula taliyo in ay boorash ay dig isku siiso laakiin allahu aclam wixii koosgareeyay ma garanayno adiga maxaa warkuugu daalinayaa umulasadii ayaa nagu soo noqotay waan u sheegnay biyihii inuu dilaacay way malaysan kari weyday wax macquula maaha waana la fiiriyey alxamdulilah wuuba dilaacay tallaabadii ku xigtay waxay noqotay marka in micnihii faleebadii foolkululeysada ahayd nala ku duro markaan leeyahay aniga ma ahan laakiin abaayadii foolanaysa laakiin aniga xataa waa sheekada waa ku jiraa 8 markay ahayd ayaa nala ku bilaabay qiyaastii ilaa iyo saacado badan markuuna surnaa 2 kale ayaa nagu darsoomay 4 sentimitir ayaana furmay waxaa dhacday in nabaradeeda quwad lahayn wax walba oo la kordhiyo si kastoo la geeyo in nabaradii sidii la rabay uusan isku soo taraynin iskugu dhowdhoweyn adiga markay ahayd waaga markuu beri rabay ayaa dhakhtar noo yimaaday dhakhtarkii wuxuu go'aan ku gaaray in laga wada damiyo foolkululeysada faleebadaas in maaragtay laga baktiyo maadaama jirkeedii uu maaragtay wax badan galay mararka qaarkood hadduu kaa bato wax kaama taraayo adiga calaayo xaal wanaal ka damiyey markii waaga beri rabay waxaan qolka ku joognay aniga abaayo xaajigeeda walaasheed iyo maaragtay abaayo foolanaysa kulligeeni waa wada daadanay aniga kow aan ka ahaado horaanba isku tuuray qararacdayda iyo quuradayda waaba la yaabay daal igu jiray ma yarayn waxay doontaba ha ahaato waan wada seexanay abaayana way seexatay dhakhtarka marka uu habeenkii noo imanayay oo naga diminayay wuxuu yidhi 8 subaxnimo ayaa lagu celinayaa marka waa arkaynaa say noqoto 7 markay ahayd ayaa hurdadiina la ka jafay 8diiba waa lagu bilaabay in haddana faleebadii ay meeshii kasii socoto oo maaragta haddii kow loo bilaabo adigu maxaa warkuugu daarinayaa markay ahayd adiga 4 ilaa 5 inta u dhaxaysay ayay alxamdulilah abaayo dhashay waxyaabaha aan marka ayada ka codsaday oo aan iri abaayoy ma la wadaagi karaa qisadaada gabdhaha Soomaaliyeed tusaale ma u noqon kartaa haa ayay tiri sababtana waxay ahayd isbitaalka markii aan tagnay maalin sabtiya ilaa maalintii axadda ay galabnimadeedii waqtigii aan tagnay waqtigeedii kale ayay dhashay intaas qaabkii ay u neefsanaysay qaabkii ay isku dibcinaysay ayaan aad uga helay gabar kasta oo Soomaaliyeed hooyo kasta oo dhalaysa waa hooyada ugu geesisan hooyooyinka qolalka nagu dhagan dad yowga kale markay ku dhalaayaan way qaydiyaan way ooyaan balse gabar Soomaaliyeed ma dhahdo umulisooyinka way isku wada sheegeen way wada ogyihiin gabadha Soomaaliyeed adkaysigeeda iyo fariidnimadeeda maasha Allah marka abaayaday Soomaaliyeed waxaan ku sii arkay oo aad aan uga sii helay muddo 24 saac ah in aysan hal mar oo kamidana aysan is adkaynin jirkeeda aysan soo kuduudin garbaha isku keenin ilkaha aysan isku qabanin wajiga aysan isku qabanin neefta aysan isku dhajinin intaas inay neefsanaysay ma iga rumaysan kartiin intaas in uusan jirkeeda hal meel oo kamidana aysan is adkaynin waxyaabaha aadka aan uga helay waxaa kamid ahaa siday u neefsanaysay siday isku dibcinaysay neeftii iyo isdibcintii oo isla socda si iskula keentay waxyaabahaas
waxay ku gaartay 24 saac oo ay foolanaysay inaanan marna ka dareemin inuu xanuun hayay in kale. aad baan ula dhacay, waa u sheegay, waxaan idhi maasha allah tabaarakallah, weligay ma arkin gabar kula mida ayagoo gabdhaha Soomaaliyeed ay kulligood wada neefsadaan intaan la joogo isdabciyaan. haddana abaayo waxay jibisay rikoodhkii 24 hours oo hal marna aan la is adkaynin. neeftii lagu yimid in la qaato lagu dhalay bal ka waran. okay, marka qaabkii isgoosashada iyo sida ilaahay ugu fududeeyay inaysan markaan isgoosan oo aysan isdilaacsan waxay ahayd oo ay ugaga dhex baxday waxay ahayd markii ugu dambeysay cunuga madaxiisa uu soo baxayay ayay neefsanaysay abaayo. neef ayadoo neefsanayso ayay ku dhashay, ayadoo neefsanayso oo aysan xoog iskaga soo riixin. waxaa keenaya in hoos la isku goosto, waxaa keenaya waxaa ka mid ah cunuga madaxiisa markuu soo baxaayo ayay hooyooyinku xoog isku soo riixaan iyagoo isle hal mar cunuga iska soo saar, hal mar ha kaa soo baxo, hal mar xanuunka ha ku dhaafo, hal mar waxaan kugu taagan bannaanka ha yimaado. taas ayaa keenaysa marka gabar kasta waa in umulisadeeda ay kala tashato markay isbitaalka imaato ay tiraahdo yaana isgoosanin, yaana iswaxeynin, yaana mar walbaba ay tiraahdo ii sheega, ila taliya sidaan u neefsan lahaa, sidaan wax yeeli lahaa. waxyaabaha kaleeto abaayo aan ku ammaanayo waxaa ka mid ah xataa markii ilmaha kasoo bixi rabay inay taagnayd, markii ay daashana aan seexinaynay, markii ay maaragta sariirta xoogaa ku nagaatana aan soo kicinaynay, in dhabarka kaliya aysan u jiifin ee hadba dhinac aan u seexinaynay. markay dhabarka u baahata ha u seexata, laakiin inaan lagu daynin dhabar jiifkaas kaliya, qofka inuu dhabarka kaliya u yaallo inaan lagu daynin, asxan dhinacyada in loo jiifin karo. hadba umulisadaada waxay ku cunugaagu hadduu caafimaadkiisa fiican yahay in lagu jeedin karo. markii ugu dambeysay abaayo waa kicinay maadaama 24 saac ay ku qaadatay oo xanuun iyo fool ah. markii ugu dambeysay waan istaajinay ilaa cunuga uu afka macnii meeshu kasoo bixi lahaa ilaa uu ka imaanayay waa istaajinay, annagoo mar walba eegayno oo ka warqabna oo u jeedno. wax hal mar iska soo duulaya ma jiraan, wax walbaba tartiib tartiib ayay usoo soconayaan, ayay usoo gelayaan kanaalkii iyo waxay soo marayaan hadhowto farjigii ayay soo marayaan. marka abaayo kasta waxaan rabaa inaan dhaho neefta iyo isdabcinta ku dadaal. neefta iyo isdabcinta way wada shaqeeyaan. markii aad neefsatana waad isdabcinaysaa, jirkaagu wuu dabcayaa. markaad isdabcisina si fiican ayaa u neefsanaysaa. marka abaayo qisadii aan rabay inaan kaga tusaaleeyo ayaa waxay ahayd 24 saac sida aysan mar qura aysan isku adkaynin, neeftana iskugu celinin. wixii la dhahayayna ay u maqlaysay, iska soo riix markii la dhahana ay soo riixaysay, jooji markii la dhahana ay joojinaysay. cunuga markii ugu dambeysay uu soo baxayayna inay neef ayadoo neefsanayso inuu ku soo baxay. ma raba khalad inaa ii fahantiin, ilmaha waa la iska soo riixi karaa, wuuna ku qabanayaa maxaa ku dhahayo reflexkii ahaa inaad iska soo riixdid wuu ku qabanayaa. laakiin marka ugu dambeeyo oo uu cunuga madaxiisa uu farjiga soo galayo, xoog ha iskaga soo riixin, u neefso adoo neefsanayo, adoo isdibcinayo, adoo taxadarayo, soo riix. ha iska soo isgoosashadan hoosta la isku goosanayo oo gabadha ilaa dabada go-ayso waxaa keenayo xoogga ugu dambeeya ee cunuga markuu kaasoo fuqi rabo la iskaga soo riixayo ayaa wac uu u noqonaa. meeshaas markaa maraysid u neefso. neefsashada caadiga ah waxa weeye adoo sanka ka jiidaayo, afka kasoo deynayo, xabadkaaga kacayo, markaad neefsatidna wuu soo degayaa. adoo isdibcinayo ayaa marka dambeto si tartiiboo aadan dareemayn ayaad u neefsanaysaa oo ka mid noqonayo neefsashadaadii caadiga ahayd.
marka ugu dambeeyana waxaa dhici karto markuu cunuga kaa soo baxaayo in lagu yiraahdo inay ku dhahaan mar walba waa in aad umulisadaadii aad la leedahay micnihii indhaha aad maaragtay kala xiriirtid aad maqashid waxay ku dhahdo jooji 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 markii lagu dhahana aad joojisid hadda soo riix markii lagu dhahana aad soo riixdid marka ugu dambeeya cunuga kaa soo baxayana neef iyo taxadar iskaga soo saar adoo neefsanaayo